doodku ka soo qaaday gurigu diyaarsaday qurux badan bisleeyo ku aroos galaysaa gabadhii markay dood ka soo qaaday gurigii keenay baa wax dhacday gabadhii uur bay leedahay 3 bilood. Assalaamu calaykum magacaygu Azam ahad baxarjinaya ina caafimaad qabtid haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay YouTube-kayga subscribe saar aad ba u maasan tahay saa u gaaro wadada gaar lahaa boqolka subscribers maanta waxaa wada video aad qurux badan leeso diray asxaabteeda aad qurux badan igu xiran snapkayga iyo instagramkayga qofkii aad waqti ku bixisay oo time ku bixisay lacagtaada maalkaaga waqtigaaga wax kasta aad siisay ee xaaskaaga oo ehelkeedana ku siiyeen aad guursatay oo gabadhii aad juhdi gelisay wadan aad keentay kadibna ultima soo kaxeysay wadanka Canada aad keentay wadanka Canada markaa keentay aad isdhahday laboorkii inta ka doonin ka hor aad guri aad haajistay guri qarash badan kaaga baxay oo gurigii aad dhameysay wax walbo aad dhameysay qurxisay wax walbo conform ka dhigtay gabadhaasi marka laboorka aad ka soo doontaa guri keentay isdhahay alla maanta arus baa taho dee suud u qaalisana markaasi magaalka aad joogtay lagu gadayay aad soo gadatay aad soo sharaxday waxana qurux badanna aad soo gaday aad gaari soo qaadatay gaari aad u qaalisan soo wadatay meesha imaatay laboorka marka imaatay oo gabadhii aad soo kaxeysay gabadhii soo waday aad keentay magaalka adiga aad ku nooshahay okay guriga markaa keentay gabadhii hadii ku dhaxdo walaalkayga aniga nin baa qabo adoo qabo bay ku dhahay nin kale baa aniga qabo uur 3 bilood baan u leeyahay maxaa sameyn lahayd ilaah baa kugu dhaariyay maxaad sameyn lahayd 3 bilood uur baan ku leeyahay adiga maxaa sameyn lahayd qisadaasi ayaa rabaa oo aad ka qurux badan in aan soo jeediyo qisadaasi oo ka hadlayo mursal muuse ayaa rabaa qisadaasi oo aad ka qurux badan ayaa rabaa in aan dhageysano kadib maanta 10,000 aan dhaafno ama aan gaarno waxaan soo diin doonaa video aad sugaysan oo filkii oo maxaa nasiibka i baday nasiibkii maxaa i baday filkaas ayaa rabaa inaan soo deeyo oo aad u qurux badan oo waqti time juhdi iga galay insha Allah billahi karim hadda joogtiin like garee asxaabta u gaaraan sheertana 5 qof u dir u sheeg garee walaashii iyo walaalkayga aad oo mahadsantiin soo dhawaada yar maartay reer Canada aba gabadh ay leeyihiin reer Djibouti weydii yaabihii deganaa Djibouti weydii gabadhii waxay odaygii islaantii waxa uga baa noqday waalidka gabadhii waxay inay tiyahay baa wuxuu yiri si ay waalidka igu caawiso oo atigeed baa dawal soo kaxay gurigooda laakiin gurigoodii soo degtay waxay ku warhaysay weydii yaabihii sidii loo wada hadlayay baa maartay waxay jacay ويشي ويكورن أبكورن عليه معبد فهي تعال إسكندر بالشيء هي بدل الدجاج متى أنا ده مستقبل يجود إسكندر معاه وقاله لماذا برضو وحي هاي يقول تيجي ده وحي شوية هاي من السعودي الحمد لله واحد وبيجي بقى ماشي كبحي أو بنتها بيها هو يجي بايدنا ماشي كبحي إسكندر قبل ما كانوا كحيستو محصول وكحيستو إن ابتدائي ما دام كندي سودان كندي دكان قبل يوم مثلا هو شيء قالي شو قبلنا يدون شقين ويل كان وهايسا لا ودا هاي وخد حيل واي هاي قبل واحد عضي نيكي البيس شعلاين يوم بس تبتاو شعلاين لا تشت يجي يروح يدرسوا لو ما كهرية أنصح هاي كنا نرسمينا كيس واحد كتيران marka ma jiraan adu sindinka u xiray gabadhi arigeeda la qaaday mid joogi lacagtii soo dabariyay awlihii gabadhi naarkii kala horeysiisay ninkii Djibouti joogas kii kalena waa ku dhacay maalintii ku ninka hawshii dadaal buu ka galay gabadhii uu doonay inuu soo dhoofsado uu soo kaxeeyay markii uu wadankii ka soo dejiyay baa airportku ka soo qaaday gurigu diyaarsaday qurux badan bisleeyo ku aroos galaysaa gabadhii markay airport ka soo qaaday gurigii keenay baa wax dhacday gabadhii uur bay leedahay 3 bilood yesa wuxuu dhacay dadin baa ku sheegay arrinta sajra in kalaana beelmaha iskale markaadana kaasa ku horay
كامل ودنبي ninka dhulkaa la soo yaraaday هاي waxa laaliyo wuxuu yaalo male wala kuma samayn karo gabadhu waa ehelkii wali musliimiin gurigii iyadoo diyaariyay gurigan iska deg hawlaha iyo waxaan kala shaqeynayaa sharciyadaadii waxa uu kala shaqeeyay si qurux badan bahowlaheedii ugu dhameeyay ilaahiyadii ilmihii waa kala keenay iyadoo magaalada degan oo nabadu wuxuu aadan kala shaqeeyay ninkii ay isqabeenay ilmaha yar u dhashay inuu process ula sameeyay gabadha sida family aanu kala luna maaragtay wiilkii dee wiilkiisa waddankeedu ku keenay wiilkii baa hawshiisa ka shaqeeyay wiilkii buu haddana waddankii keenay hay'adda kala shaqeeyay gabadhii waddankuu keenay qoyskiisu ku dhammaystiran buu markaa yidhi nabadii isku keenay labadoodii isku keenay qoystee maaragtay qurux badan kama caban waxana jira moodan ku dhinaabtay wixii dhacay maxaan dadka ka dhaweystay maxaan dhibta ka ilaashay maxaan qalbigaaga dhowray inaan qayrkaa ku dhaafsho maxaan isku dhiirigeliyey adoo dhayashada dantayda maxaan kaada ku dhamiyey haddii la islaami waayo wanaag lama karteen musa wuxuu afkiisa sheegay alxamdulilah aniga ahaanteeda waa cafi lahaa because gabadha in abtigeedii tahay gabadhana aan abtigeyga oo isiyey aan jeclaa waan cafi lahaa sababtay tahay waayo wax kasto waa qadar waayo ninkan hadda gob waa wuxuu sameeyey gabadhii muxuu keenay oo haddii dhashay ninkii qabay inuu keenay ayuu ka tagay waa goobta la sheegay waa ninkan aniga ahaan waa xaqiiqda marka ka hadlo waa ka tagi lahaa sababta uu tagi lahaana waa saan oo kale because god abti dhalay ama adeer dhalay saas ay dhacdo de waa ka tagi lahaa waa xaqiiq dhabta ah ma rabi in aan isku hayno in aan buuqno ma rabi waxa rabaa in aan ka tago waa ka tagi lahaa aniga ra'ayis waaye guys soo dhawaada adiga haddii aad tahay marka hore sabab youtube-kayga subscribe isaar saa u gaaro wadada saarnahay 100 subscribers sharafi karaamo إن شاء الله بالله السلام يا باي وحد الله odaygii baa meesha ka baxay oo dhintay aabihii ahaa hooyadii baa iyaduna meesha ka baxday isku day gabadhii markaa inuu ka haysto inuu mehersado oo ka haysto inuu tidii ahay maadaama Canada soo joogo ha Canada degan aadiya gabadhii uu markaa hawsheedii galay soo gabadhana iyaduna jacayl wiil kale waysa la wada haye oo ka dhaxeeya way waxa weeye gabadhii waxa dhacday ninkii ay dees jeclaayeen iyaduna dees dhabtaa u jeclay bay la tashatay ninkiina wuxuu yidhi dhageyso laba meher ka horeeya ansax haye ya keenan horeysiinina kiisa wax ka jiraan markaa ma jiraan adu si